muslimiinta ku dhaqan dalka Jarmalka gaar ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ayaa si weyn isugu soo baxay guud ahaanba dalka Jarmalka tukashada salaada Ciid al-Adha. Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kassel oo aanu kala qayb galay salaadii Ciida ayaa isugu soo baxay barxad weyn oo loogu talagalay in lagu oogo salaada Ciida. Waxaana dadweynihii halkaasi ka soo qayb galay isugu tahniyadeynayeen salaamaha iyo weynaynta maalinta Ciida. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kulanti waxaan wanaagsan kullu caam oo antum bikhair. Waxaanu si toos ah ugu wada jirnaa barnaamijkii salaamaha Ciida telefishinka qaranka Soomaaliland. Waxa garabkayga taagan mid kamid ah dadweynihii ka soo qayb galay salaada Ciida saaka. Walaal ku soo dhawaad adiga ku bilaabaya magacaaga. magacaygu waa Axmed Xuseen Aadan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaalida ee ku dhaqan Jarmalka gaar ahaan reer Kassel aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay dhammaantiin kullu caam wa antum bil khair taqabbalallahu minna wa minkum fi a'maali saalih كل عام وأنتم بخير أننا نسيدو كلا سوين بنكون سلامنا بسم الله الرحمن الرحيم هلك وحن كسلام يا أمة الصوماليات ما أنتوا عاد بنو فرحسنا هاي أنتن هاي الصوماليات كل دقان شرمل كاران كاسل هلك وحن كسلام يا هرتا أمة الصوماليات مسلمين تدوم السلام يا جاران وحسلام يا أمة الرجال الصوماليلان مدحوينها السلام يا وحسلام يا فم الكيجا هو يدا منشر ماركة عامر بن سلام يا وحسلام يا بهاي دمان فم الكيجا دن وحسلام يا أوديجا سلام يا عبد الغني محمد إسماعيل بن سلام يا دمان وحسلام يا فم الكيجا وحسلام يا صده يقول قال يا فاطمة يوسف وشوكت Somaliland هرجيس عاصمة وحسلام يا دمان متى تقانا سلام يا صاحبة درم أحمد محمد بن سلام يا اسمهان موسى حسن دمان أنت يقول قالي جاي فرندس كي يقولون بن سلام يا صاحبة ده سلام يا مصطفى فيوتشر نوك سلام يا ولاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي عيدكم مبارك ونشكرن السلام عليكم. أنا مقعيقو ياهي خضراء على عثمان دمان هلكم وحن كالسلام يا أمد المسلمين تعمل كستيكون يلوحنياك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير هلكم وحن كالسلام يا كلو فاميلي جيغان لسوكو بيكرن كمتاي هويد وبحادن هويد عم نشر ماركة أمون أيان صاحبتي أصحاب ذي دقات وحن كالسلام يا كلو أمد الصوماليين ملك ستيكون يلوحنياك كل عام وأنتم بخير يادقو أبتيجي وحن كالسلام يادنا أنا قول إلى هذا عيد روس عثمان ياسين قبل جيني بوان السلامي عيد مبارك كل معاملة بالخير قبل جينا بقى عفمات يعني رجينا سنة كسنة كيس إلى هنا جارسيو آمين أنت سنة ليه قبل جينا بقى عمو كل عام وأنتم بخير أنا قم مقعد كبلاوي مقعد من حسين محمد وحسلام يا مناسبة عيدة أوجد هو يدي فوسي حسن يوسف أبوها حسين برصده لما أنا ومد مسلمين تعمل كسيتشوكتو قارهان صوماليدا قارهان Somaliland waxaan leeyahay kulli caam oo inta bixeer sanadka sanadkiisa bashbashii barwaaqo ku gaara amiin amiin kulli caam oo inta bixeer anaguna sidoo kale khayr baan ku rajaynaynaa magacayga waa Maxamed Ismaan Macalin Axmed waxaan salaamaa inta magacayga muuqayga taqaan qaasatan waxaan salaamayaa muslimiinta oo dhan ciid mubaarak aan leeyahay waxaan salaamayaa labadeeda waalid hooyaday Faadimo Maxamed Tuuri aabba Ismaan Macalin Axmed عام وأنتم بخير أننا نسيدو كلا عاد بانو سلامنا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كسودو وديكو كبلاوي مقعاga iyo dalka salaam ilaahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud Cabdullaahi Qorshe oo maarta Kassel ku nool waxaan salaamayaa horta waxaan warka ugu horeyso waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr dhamaantiin inta muslimka walaalahaygan salaamayaa waxa ugu horeeyaan salaamay hooyada macaan hooyaday Madiina Nuur Macalin iyo aabay macaan aab Maxamuud Qorshe familkeyga reer Qorshe walaalahay oo dhan guud ahaan anoona kala reebin yar iyo weyn dhamaan waxaan salaamayaa asxaabteyda reer Kassel oo ku nool iyo waxaan salaamayaa asxaabteyda Soomaaliya ku nool iyo Somaliland dhamaantooda Soomaaliya dhan meesha ku nooshaa waan salaamayaa kullu caam wa antum bil khayr kullu caam wa antum anaguna sidoo kale waan salaamnaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ayni salaanay dhamaan halkaan waxaan uga hambaartay aan ka salaamayaa dhamaan familiga asxaabta reerka dhamaan muslimiinta waxaan leeyahay ciidul mubaarak dhamaantiin waxaan leeyahay ku ciida farxad bashbashi barwaaqan u rajeynaya Soomaaliyana insha Allah ciideeda kale inaan dhamaanta ku wada ciidno iyo midnimo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal waxaan ku soo dhaweynayaa mid kamid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay iyaguna salaada ciida ku soo dhawaad adiga ku bilaabay magacaaga Xadnaan Balitaha ya salaam ilaahay hooyaday يا walaalahay aan salaamay أحمد عبد السلام
يد سلام لهي waxaan salaamaa hooyada oo Carabi joogto iyo idii oo Soomaali joogto iyo idii oo macaan Soomaali joogto anaguna sidoo kale waa salaamana wax kulan ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair ciid mubaarak magacaygu waa Saare Maxamed Cabdulle oo joogto wadanka Jarmalka gaar ahaan magaalada Kaasal waxaan salaamayaa Soomaalida dhan meel walba ay ku nool yihiin kul caam wa antum khayr bil ciid waxaan salaamaa gaar ahaan hooyaday walaalahay hooyaday Xaybi Cabdiraage habrirtay Cadar Cabdiraage dhammaan reer Xasan Cabdiraage meel walba ay ku nool yihiin ciid mubaarak aan leeyahay waxaan salaamayaa eedaday Kaaha Cabdulle Faadimo Cabdulle dhammaan meel walba ay ku nool yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa weeyaan Raxmad Saleebaan Jaamac waxa aan salaamayaa dhammaan ummadda jamaacal muslimiinta ee ciiday waxaan leeyahay ciid mubaarak insha Allah bidnillaahi alkariim ilaahay ciideeda hay nagu gaarsiiyo farxad iyo bashbash iyo barwaaqo waynu ducaynaynaa dadkan muslimiinta ah in ciidan ka qayb qaadanin qaar buka iyo qaar colaada haysataba insha Allah bidnillaahi alkariim waxaan leeyahay ilaahay karaamadiisa fadligan bishan ciid al-adha in ilaahay qof kasto islaamaba ilaahay u naxariisto oo ilaahay naga qadin naxariistiisa subhanahu wa ta'ala waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa khaasan familygayga dhammaan meel kasta dunida ku joogan iyo waxaan salaamayaa Mustafa dhammaan wariyayaasha qaadaya kamarada aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan kaga qaadanaa anaguna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal adigoo ka faa'iideysanaya fursadda uu telefishinka qaranka Soomaaliland ku siiyay aad halkan salaam lahayd dhammaan halkan Mustafa waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka inay maanta munaasabada Eid al-Adha awgeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair si gaar ah halkan waxaan uga salaamayaa dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool daafaheeda 6 gobolba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan familygayga reer Xasan Deex oo majority-gooda joogan magaalada Burco dhammaan waxaan leeyahay ciideeda ilaahay bashbashay barwaaqaha inagu gaarsiiyo adigan Mustafa aad baan ku salaamayaa ciid mubaarak dadweynaha ka soo qayb galay salaada ciid al-adha ayaa aad u fara badnaa magaalada Kaasal oo aan ku sugannahay barxadda weyn ee saaka lagu tukanayay waxa hareerahayga taagan qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay salaada ciida waxaanu midmidii ku soo gudbin doonaa tahniyada salaada ciid al-fidriga walaal ku soo dhawaado ku bilaabay magacaaga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Idris Cabdullaahi Cabdi waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta kulli caam wa antum bikhair baan leeyahay kulli caam wa antum bikhair waxaan salaamayaa dhammaan dadkayga iyo ehelkayga iyo qaraabadayda oo ku kala nool Hargeysa Burco Boorame meel walba Soomaaliyeed ay halka ku nool yihiin waxaan salaamayaa magaalada Kaasal dadka shacabka ku nool ee maanta halkan ku iiday waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhair adigoo Mustafana waan ku salaamayaa kulli caam wa antum bikhair baan ku leeyahay kulli caam wa antum bikhair sidoo kale anaguna aad baan ku salaamanaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa oo kale ehelkayga asxaabta dhammaan dadka maanta barxadan aadka u qiimo badan leh ka soo qayb galay waxaan kaloon aad u salaamayaa Mustafa adigana aad baan ku salaamayaa aad baan kaaga qaadaya kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wali waxaynu ku guda jirnaa oo aynu sii wadi doonaa barnaamijkeena salaamaha ciida waxa garabkayga taagan mid ka mid ah dadweynaha ka soo qayb galay salaada ciida walaal ku soo dhawaad adigoo ku bilaabaya magacaaga walaal ku dhawahay Mustafa magacaygu waa Abuukar Abshir Umar waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed kullu caam wa antum bikhair dhammaan ciid mubaarak ciid wanaagsan ayaan leeyahay كل عام وأنتم بخير عيد ونكسمها كلنا أدينا سيدو كله magacayga waxa la dhahaa Sidiq Cabdi Ismaaciil dhammaan wada salaamaya dhan meesha dadkoo dhan islaamkoo dhan cid walba oo ciidaysa waxaan leeyahay caafimaad ku ciida dhammaantiin waxa ka mid ah familygayga xaaskayga dhammaan waxa leeyahay ciid mubaarak عيد مبارك كل عام وأنتم بخير نقول سيدو كل خير بدنا بنكون جينا أحمد نور حاجي يدك سلام له ذلك والله دمان ومضى الصوماليات يو كل ومضى مسلمين تا سيدو كل مبروك سلام الله يو إلكي كان سلام عليك إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير waxaan salaamayaa ummadda muslimka meel kasta joogan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa familkayga asxaabtayda inta muuqayo magacayga ba garanaysa waxaan leeyahay ilaahay acmaasha saalixa inaga aqbalo kullu caam wa antum bikhair kullu caam wa antum bikhair ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal kusoo dhawo telefishinka qaranka Soomaaliland assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Nuux Noor aad baan u salaamayaa bulshooyinka dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan reer Soomaaliland aad baan u salaamayaa meel kasta joogan iyo ummadda muslimiinta oo dhanba iyo Soomaaliya meesha joogan aad baan u salaamayaa
dee kulli sana waanta dayib baan leeyahay ciid wanaagsan ciideeda ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba عيد مبارك أنا وسيدة كل أدبان كل سلامنا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال صدوا تلفزيون قرن سوالنا أدبان نقول له هي عيد مبارك بان لي دمان ومد المسلمين تا وحنادو السلام يا فاميلي يا أصحاب تدا أنتم موقعي ومقعي بقرنيسو عيد مبارك بان لي هي كل عام وأنتم بخير عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال رسم مركب جورس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta joogto kullu caam wa antum bikhair ciideeda ilaahay si farxad nagu gaarsiyo dadka xujaajtana ilaahay ka aqbalo inagana ilaahay subhanahu wa ta'ala yahay naga aqbalo soonka soo nashalay toole waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta joogto hambalyo كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وشيك شمبرشوتاي إن شاء الله marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak insha Allah ugu horreyn waxaan rabaa inaan meeshaan ugu hambaliyeeyo hooyaday Aamina Maxamed Ibrahim iyo dhammaan walaalahay familkayga asxaabteeda waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay waa salaamayaa gaar ahaan kuwa Germany ku nool gaar ahaan kuwa magaalada Kassel ku nool waxaan kaloo salaamayaa asagana saaxiibkay Mustafa Fijar waxaan ku leeyahay saaxiib عيد مبارك إن شاء الله عيد مبارك كل عام وأنت مقعي وتوكل صاحب يلا سلام عليكم بعد التي في قاعد نكون سلام يا أهل كي أصحاب تيدا دمان الكاسل وحن لا هاي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير أنا ونسيت كل خير بنكون رجينا مقعي ويوسف عبد الرحمن وحن جوجا دلك جلمك مقعي نانسي سبحان الله دلعف وحن لا تقبل الله منكم صالح الأعمال ومدة مسلمين تأردن وحن لا عيد مبارك meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay waxaad ku ciidaan bashwash barwaaqo ciideeni waa ciidul adha iyo ciidul fitr ciid kale ma jirto labadaas ciid aan weyneen insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayna barakallahu fiikum sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fiikum alaykum magacayga Mustafa aad baan adiga ku salaamaya adiga iyo telefishinka baad baan idin salaamaya magacayga waa Cabdisaaq Ismaan Barre kulay maanta aad buu qurux badan tahay joogna aad buu fiicnaa magaalada Kassel gaar ahaan dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel oo si fiican looga ciiday ciideeda ilaahay bashbashiyo barwaaqo inuu gaarsiiyo xagga waxaan ka salaamayaa caruurteyda iyo xaaskayga oo halkan ku nool dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel iyo familygayga oo daafaha dunida kala jooga Hargeysa Australia iyo Yurub iyo Mareykan iyo Canada iyo gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa walibana walaaladay iyo hooyaday baan aad u salaamayaa gaar ahaan hooyaday macaan ayaan aad u salaamayaa Kaltuun Xasan Cumar ayaan aad u salaamayaa dhammaan ummadda muslimiintana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliyaba waxa magaca Soomaali sheegtaba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciideeda bashbashiyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo kullu shalayna maalintii qaaliyeed oo soonka ahayd ilaahayna maalinteeda oo ajarkeeda ilaahayna naga aqbalo ummadda xanuunsanaysan ilaahay xanuunka ka dulqaado aad iyo aad baan idin salaamaya Mustafa idinka adiga iyo TV-gana aad baan idin salaamaya kullu caam wa antum bikhair ciid mubaarak assalaamu alaykum ana xanada nasiib waxa halkan ka salaamaya hooyaday ubax iyo ayeeyaday iyo dhammaan halkan ku nool iyo waxa ka salaamaya iyo walaalkiisa kaliya Abdi Xamse iyo intaas aad baan ku salaamanaa anaguna ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal salaam dadka أنا حق سلام يا والله شيء نسيبي والله شيء خضرية يا هويرك سلام يا أبتيجي حمسة يا حبرتي حمسة حبسمهان. أيوة سلامنا أنا قلنا سيدوكله. magacayga waan ku bilaabayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku bilaabay magacayga Marwa Cali Marwa waxaan salaamay ummadda muslimiinta oo dhan أنا أقول لك لا أدبن كل سلام ونحن كلنا عيد مبارك تقبل الله عيد مبارك waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii salaamaha ciida waxaa garabkayga taagan mid ka mid ah dadweynaha ka soo qayb galay salaada adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu waa Maxamed Yaasiin Jaamac waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta daafaha dunida kaga nool yihiin siba ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan ka salaamayaa walaalkay Mustafa garabkayga taagan iyo sidoo kale bahda warbaahinta waxaan sidoo kale si khaas ah u salaamayaa familygayga meel kasta daafaha dunida ka joogan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciideeda insha Allah ta'ala ilaahay bashbashay waraaqahin u gaarsiiyo waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda qaranka waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair insha Allah ta'ala assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak
ahaantii waxaan ka salaamaya ummadda muslimiinta meel kasta daafaha dunida ka joogtaan gaar ahaan ummadda reer Somaliland anigoo magacaygu yahay Cabdisaaq Cabdilaahi Xasan waxaan salaamaya familkayga reer Xasan Cismaan oo daafaha dunida kala nool runtii aad baan ugu faraxsanahay aad baan ku salaamay Mustafa assalaamu calaykum sidoo kale anaguna aad baan kaga qaadanaa kul caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'maal guud ahaanba jawiga maanta oo aad u wanaagsanaa iyo dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay goobaha lagu cibaadaysto ayaa si weyn isugu tahniyadeeyay farxadda iyo weynaynta maalinta ciida Mustafa Cabdikariin Ali telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Kaasal ee dalka Jarmalka